Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhowow daawada barnaamijkeenii taxanaha inoo ahaa ee dhimashadii caddeed qaybtiisii 7. Wuxuu arkay Anna. Wuxuu u muuqday mid cabsanayo, laakiin wuu dhoola caddeeyey. Wuxuuna fadhiistay agteeda. Marwahalan ayuu dhahay si deggan. Aad ayay u wanaagsan tahay inaan ku arko. Goormee imaaday? Shalay ayay ugu jawaabtay. Maxaa u soo dahday? Maxkamadda ayaa ka dhumay ayuu ugu jawaabay. Wuxuu u muuqday mid aanan faraxsanayn. Ii sheeg saa kuu caawiyo ayuu dhahay. Waxaan doonayaa inaan Sahra caawiyo. Maxaynu samayn karnaa? Waxaan saarnaa diyaaradda sidoo kale, laakiin ma caawin karin iyada. Mana doonaynin inay dhimato. Ila joog ninkii dhalinyarada ahow. Ayana ayaa ugu jawaabtay si deggan. Waynu caawin karnaa, waynu hubnaa. Subaxii xigay waxaa Sahra la soo saaray maxkamaddii. Wejigeedana wuu caddaa, indhaheeduna wuu gaduudnaa, wayna oynaysay. Qareenkii Mudane Jeng ayaa bilaabay inuu weydiiyo su'aalo. Hadda Sahra maxaa u imaaday waddankan? Ayuu weydiiyey si deggan, wuuna u dhoola caddeeyey. Sababtoo ah waxaan jeclahay waddamo kala duwan. Waxaan doonayaa inaan la kulmo dad cusub. Waa maxay sababta ula socotay ninkan dhalinyarada ah? Ayuu weydiiyey. Maxaa yeelay? Sahra way joojisay hadalkeedii, waxayna fiirisay cagaheeda. Qofna wejigeeda ma arki karin. Waxay bilowday mar labaad inay u hadasho si deggan, laakiin qofna ma maqlaynin. Waan ka xumahay Marwo Sahra, ayuu dhahay Mudane Jeng. Qofna kuma maqlayso codkaada. Fadlan kor u qaad. Sahra waxay kor u soo qaaday madaxeeda. Waxay si deggan u fiirisay hooyadeeda, kadib Xasan. Sababtoo ah waan jeclahay ayay si degdeg leh ku dhahday. Anna waxay dareentay daal. Waxay fiirisay ninka dhalinyarada ah oo dheer, haddana leh indhaha qurxoon ee madow. Asiga maa daroogada lahaa, ayay ku fikirtay. Waan huwaa waatiisa. Wuxuu iibiyaa daroogada, soona gadaa. Wuxuu ku riday boorsada gabadheeda. Haddana iyada waxay dhahaysaa waan jeclahay. Stephen ma uusan dhaqdhaqaaqaynin. Wuxuu fiirinayay Sahro, laakiin marna ma fiirinin Sahro iyada. Mudane Jeng wuxuu sugay daqiiqad. Kadib wuxuu mar labaad weydiiyey Sahro su'aal. Ma ogeed wax ku saabsan daroogada? Ayuu weydiiyey. Maya, ayay ugu jawaabtay si dhaqsi leh. Dabcan ma ogi. Ka waran Xasan? Ayuu dhahay. Wax muu ka og yahay daroogada? Fadlan ka fikir kana jawaab, ayuu weydiiyey. Maya, ayay dhahday si degdeg leh. Waan huwaa ma ogo wax ku saabsan daroogadan. Sahro indhaheeda buluug ah waxaa soo buuxiyey xanaaq. Ma aanan ku shibin herowiinta tubada daawada cadayga. Waxaynu nahay dembi la'aan. Mahadsanid, ayuu Mudane Jeng dhahay, wuuna fadhiistay. Qareenkii booliiska ayaa soo istaagay. Marwo Sahro meeqa lacag ayaa haysatay? Ayuu weydiiyey. Qiyaastii 15 baan aan u malaynayaa. Taasi aad uma badna. Kani waa waddan miciishadiisa sareysa, waad og tahay. Meeqa ayaad ku iibsan kartaa 15 baan? Sahra ma aysan haynin jawaab. Ma garanayo. Aniga had iyo jeer waxaan ku noolaa wax raqiis ah. Ma u baahneed lacag badan? Su'aashii qareenka waxay ahayd mid degdeg badan. Waxaa u baahneed lacag badan. Waxaa u baahneed in aad gado herowiinta. Waxaad doonaysay in aad noqoto taajir. Taasi sax maahanoo? Maya, taasi sax ma ahan. Qareenkii waxba ma dhihin daqiiqad. Wuxuuna fiiriyey xeerbeegtadii, wuuna dhoola caddeeyey. Xalqadeennii maanta intaas ayay ku eg tahay. Inta aynu xalqad midaan la mid ah ku kulmi doonno, waxaynu inkaga tegaynaa sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.